dhowr qof oo lagu daaweyn waa arkay halkaas oo dhahay saana u bararsanaay adi ama ka darnaay markii soo markii alxamdulillah hadda lugeyga ku tusaa inaa hore u aragtay ma ogi موجودة لوجيجا سول كوريا أكاسا درسين سو موجودة برر كان كلي ما أهل لغها إلا عجرة سوء آذى إلا وجهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن ونكسن داودياشا قيمة هي قدرنت إنك مدن meel walba oo aad caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaaladii aad nooga barateen in aan idinkaga soo gudbiyo channelka aan ku leeyahay YouTube-ka Sayid Abu Media. maanta muuqaaladii hore waa uu ka duwan yahay balse intaan muuqaalka idin soo gudbin waxaan ka codsanayaa channelka haddaad ku cusub tahay subscribe dheh, like saar, asxaabtaadana la wadaag wixii fikir ahna commentiga inoogu reeb. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waa tahay isku soo noqod wanaagsan daawadayaal. waxaan rabaa inaan maanta muuqaalkeen uga hadlo gabar caanka ah baraha bulshada oo markaasi TikTok ayaanu maanta ka hadli doonaa. gabadhaasna waxaa la yiraahdaa Xayaat oo maalmahan xaaladeeda caafimaad aad u liidato. saad ka warhaysaan gabadhaas aad bay u xanuunsanaysay, xanuun daran ayaa haya oo markaasi korkii dhan ayay ka barartay. waxaan arkayay waxay soo boos gareysay qoraal Facebook ayaa ku soo boos gareysay oo markaasi asxaabteeda ugu codsanaysay inay u duceeyaan. dad badan baa waxaa soo qoray oo ay leeyihiin commentiyada kiimika isticmaashay oo waxay isticmaashay maxaa lahaa daawooyinka jirka, yacni kiimikada waxaa laga wadaa daawooyinka ay dumarku ay isticmaalaan, daawooyinka la isku cadeeyo. dadka qaar waxay dhahayeen yacni waxay isticmaashay daawooyinka lagu cayilo ayay isticmaashay. marka qofkaas walaasheena waa gabadhan waa xanuunka biri adiga kugu iman karo. marka waxaa wanaagsan in aad walaasha mar walba ama qof walba oo muslim ah xanuunsan inaad ka damqato oo aad adna u duceyso. aad u mahadsantiin maadaama ay soo duceysteen ducadiina waa arkay xanuunkeyga ay la qaybsateen. qoraalkaas anaa soo dhigto waxaa u soo dhigtay in la ii duceeyo, maaha in been la ii sheegay la yidhaah wax la isku cayiliyaa isticmaashay gabdhoo ka digtoonaada in la yidhaah maahan. xanuunkan wax ilaahay ii keeno ducaa idinkaaga baahanahe ii duceeyo. waa tahay gabadhan waad aragteen dabcan xanuunkaas ilaah baa ii keenay leedahay. qof mu'min ah xanuunsado. marka walaasheen waxaan leeyahay marka hore ilaahay ha caafiyo, caafimaad taam ahna ilaah ha siiyo. waxaan kaa codsanaa daawaday adiga daawanaya si naxariis leh waxaan kaaga codsanayaa in aad gabadhan commentiga ugu soo duceey. waxba kaama dhibayso, ayadana ducadan waxbay u taraysaa ee u soo duceey. waa tahay aan usii gudugalo waraysigii yacni Daahir Calisow la yeeshay mar ay live ku wada jireen. Xayaat iyo qolkii Daahir Calisow ayaa mar wada joogeen oo su'aalooyin xasaasi ah ayuu weydiinayay runtii Daahir Calisow. waraysigaasi marka soo dhacay waan idin la wadaagi doonaa, idinkuna ila daawada insha Allah. soo dhawaada. adeer macaa anise ii sheegeen waxay dhaheen kaliyaha wadnahaaga mindhicirada kulli meelana kaa baarin ma jirto. laakiin adeer macaa qofsan u bararsan oo xitaa wadnahayga zaad u garaacmaa, geeskan kilidii midig xitaa waa iska xanuune, maskaxda u guurguure, hurdo dhan ma jirtaa ku dheh. daha xitaa aan xitaa waa ka weynaa waa ka barare. ma jiraan wax oo timaha lagu nafaqeeyo oo ka soo qaato qof dumar iyo intaad dukaamo tagto soo qaato timaha amaris ma jiraan? maya wallahi alcadiim ani asal ahaantii dadka timaha inay u baxaan jecel xitaa ma bihibo. maxaa tin raadiyaa tinta wax jilcisana ma marsado intaanti asal ahaan iska maxal dhiijir iska jilcaneed. waxaa arka inay gurmeyso tinta awal normal iska ahayd, waxaa arka way gurmee saas marka u qabto dadka maxal dhiijiray oo timaha ka daataa markino wax badan ay iga daadanayo. okay, ma jiraa qof ku yimid oo dumar ama nin oo wax uu ku keenaado cunto ma jiraan? horta aan waxaas ma ogi, laakiin mid halka waxaa huwa ku sheegaa waxay tahay aniga sida la ii guursada gurigeyga kama baxo, dad asxaab ma lihi, naas iska dad banaanku baxay. والله لكن أنا هديد الإسهارت أستغفر موجالين daawaday adiga oo muuqaalkan daawanaya ayaa laga yaabaa inaad isweydiiso
laakiin sabab ayaa su-aalahan Daahir Calisow u weydiinaya oo su-aalahan xad dhaafka ah. Daahir Calisow saad ogtihiin waa wariye roog cadaa ah. Runtii waxyaabo badan ayuu rabaa inuu ogaado oo baaritaan ayuu ku wadaa. Gabadhan su-aalaha weydiinaya qaar waxa waaye cajiib waay. Daahir Calisow runtii waa nin waayo arag ah, aragti fog leh. dadka qaar ma fahmi karaan, kaliya waxay ku arkaan qabyaalada dhanka wanaagsan ayaa laga qaataa, xumaantiisa isaga rabbigiisa ayaa u taala. laakiin u duceeya mar walba qofka wanaagsan waa loo duceeyaa. ugu dambeyn quraan ayaa la saaraa oo quraanka markuu u dhamaadana insha Allah wuxuu isku dayi doonaan in uu wadankan la yiraahdo Pakistan in xagaas la geeyo si ay xaaladeeda caafimaad lala tacaalo. Daahir Calisow arintaas ayuu ku jira hadda. ayadana ayaa codsatay in ay dalka Pakistan la geeyo. marka hore tacaawo ugu tufaynaa سفيان waxaan deenaa dil ugu tufo inaad bararka jirkaada oo bixi doono tacaawo si fiican u seexan doonto. marka labaad waxaan is leeyahay tan lacag soo ka darno in hindi lagu diro. adeer hindi horta ayaantan waa laga fiican yahay, waxaa ka fiican meel Pakistan la dhaho kowdhi. haye soo mar wax badan niyad ay ugu degan tahay waxay tahay dhowr qof oo lagu daaweynayo waa arka halkaas oo dhahay saana u bararsanaay adi ama ka darnaay markii soo marka alxamdulillah hadda lugeyga ku tusaa inaa hore u aragtay ma ogi ma arag موجودة لوجيجا سول كوريح أكاسا ها درسين سو موجودة عبر برر كان كلي ما أهل لغها إلا عجرة سو آذا إلا وجدان أنا جركي وحاكبت بعد فرها موجودة أنت عن كورة قابتا حد أنت عن كورة إلا قورتي بس جركي كبت بعد أنت كانت عيلك أذكرهم xanuun aad qabto oo uma muuqato oo beerkaaga keliyaha ay ku saabsan oo muuqato iyo waxaad dhaqtar u baahan tahay waxaa muuqataa in wax lagu sameeyey oo xilli maqribaa baxday xilliyadaasna khatarteeda leedahay sidoo kale qof haweeney ku timid oo muuqataa oo wax ugu samaysay ma fahamtay. waa tahay daawadayaal ilaa dhamaadka muuqaalka haddaad nala joogtay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waxaan idinkaga tegayaa muuqaalkiisa xiga inta aan dib ugu kulmi doono. waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.